khaasatan wiilka saakay saadaqa lagu bedelayay maxaa lagu sameeyay waryaa hooy farxaano dhiiqa lugaha lagu geliyo waa musqul god qoran oo wasakh ku jirta lugaha lagu geliyo gelin bismillaahi raxmaani raxiim daawada ku soo dhawaw garabla TV oo aad uga barateen barnaamij xiiso leh barnaamijkan waxaanu ku soo qaadan doonaa xasan sheekh maxamuud madaxweynaha la doortay qorshe wuxuu ka leeyahay in uu sharciga hor keeno dambiilayaashii 5 sano ka galay shacabka Soomaaliyeed fal dambiyeedyo aad u waaweyn iyo muxuu kaleeto uu ka qaban doonaa raggii sida qeyru sharciga ah loo dalaacsiiyay ee laga wada dhigay generaalo si loogu fashado barnaamijyada uu rabay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dowladan ma ku celin doontaa garaadayaashoodii iyo lacagtii ay cuneen ma ka soo celin doontaa waxa kaleeto oo aan idin haynaa cod sir ah oo laga helay kula najiis isagoo u warramaya taageerayaashiisa waxa uu sheegay 5 sano ugu dambeysay qorshayaasha waaweyn ee uu rabay wadanka in uu ku xukumo in ay fashiliyeen labada maamul ee Puntland iyo Jubaland waxa uu ajalkaasi kaga hadlayaa in uu curyaamiyay maamul goboleedyada kaleeto balse labadan maamul ay ku noqdeen laf uu gashay waxa kaleeto uu ka hadlayaa qaabka uu u rabay doorashada in ay u dhacdo isagoo meel ku diyaarsaday 5,000 oo qof kuwaas oo u codeyn lahaa in ka badan 4,895 Farmaajo waxay horseed u noqotay arrintaas inaanu toos u maamuli weyno doorashooyinkii ka dhacay Hirshabeelle iyo meesha la yiraahdo galmudug mar saddexaad waxaa caqabad nagu noqotay nidaamkii muddo kororsiga ee aanu samaynay caraabin fara badan oo ka imanaysa dhinaca Puntland iyo Jubaland oo lagu soo abaabulay deegaanada Hirshabeelle iyo galmudug iyo gobolka Banaadir intaba ilaa iyo la soo daaqulay ciidamo aan anagu ogeyn markii hore kuna xisaabtamaynin ilaa iyo dadka la fahansiiyo kuwanagii in la kala yaaciyo oo anaga dibna loogu soo adeegsado xoogagii muhiimka ahaa ee ku xisaabtamaynay saraakiishii ugu cuscuslaa ee lahayn tallaabooyinka ugu adag ee qaadi doonaan ilaa anagii dibna loogu soo adeegsaday oo na curyaamiyeen hindisahanagii ugu dambayn wuxuu ku soo dhamaaday wax la dhihi karo gablan iyo dhaxal arrintii qorshihii muddada dheer aan sircinaynay ee 4 sano ah iyo weliba 1 sano oo lagu daray wuxuu ku soo dhamaaday oo ku soo afjarmay ugu dambayntii nidaam doorasho oo aanan anagu ku talagelin oo doorasho dadban ah in wadanka la geliyo muddadaas waxaa nalaga diiday oo aan soo marnay doorasho qof iyo cod ah inaan isku daynay inaan wadanka ka qabanno doorashada qaabkii aan ugu talagalay oo ahayd in ay nagala shaqeeyaan guddiga doorashadu awooddaas wax lagu dooranayo iyo nidaamka maamulka maamul goboleedyada aynan marnaba shaqo ku lahaanin waxa ka wada shaqeynaya ay noqdaan dowladda federaalka iyo guddiga doorashada nidaamkii aanu rabnay aan ku talagashanayn oo ahaa inaan isugu keenno meel dad 5,000 tiradoodu dhan tahay oo 4,895 aanu ognahay in ay ku ridi doonaan codadka Maxamed Cabdullaahi 120 inay ku ridi doonaan cid ay rabaan ama aan anaguba u sheegayno dhahayna si bahashu ayna 100% noqon 99 ha noqote dad kale ku rida nidaamkii noocaas ayaan u qorsheynay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaa afka dhulka u geliyay oo ka hor yimid Jubaland iyo Puntland ugu dambayntii taankii wuxuu soo dhamaaday oo ku soo dhamaaday nidaamkii muddo kororsiga oo kalifay in laga awood roonaado magaalada Muqdisho dagaalkii aan ku galay kaas oo sababay in aan aqbalno nidaamka doorasho dadban haddaba daawada waad dhegaysateen warkaasi sirta ah oo kula najiis uu la wadaagayay taageerayaashiisa waxa uu ka hadlayay haddii aad si fiican u dhuuxdo
waa qayaano qaran iyo in uu waddanka burbur u horseedi lahaa. haddaba laguma cafin karo ninkaas oo kaleeto in uu kusii socdo uuna kasii mid ahaado golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya. haddaba waxaa inaga xasuusin ah in ninkaasi weli uu ka shaqaynayo burburka soomaaliya iyo in uu isku horkeeno dadka soomaaliyeed. waxaanu codsi u jeedinaynaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud in uu shaqo ka bilaabo, sharcigana uu horkeeno dadkii ku lugta lahaa khiyaanadaasi uu ka hadlayay ninkaasi, isaga iyo kuwaadiriintiisii la shaqeynayeen. waxaad arkaysaa haddaad si fiican u dhageysatid in ninkaasi xisaabta xataa uusan ku fiicneen. waxa uu yidhi 5,000 tirada guud, 4,895 waxay u codeyn lahaayeen buu leeyahay farmaajo, isagoo haddana yidhi 120 ka soo hartayna meelo kale u codeeya ayaan dhihi lahayn. wuxuu hilmaamay in 105 ay soo harayso. ninka sidaas ah waa nin aan xisaabta ku fiicneen. waxaanu leenahay iskuulka dib ugu laabo. waase ilaahay mahadiis in uusan xisaab aqoonin, sababtoo ah qorshooyinkii u damacsanaa waxa ay keeni lahaayeen in ummadda soomaaliyeed ay isku baaba'do, waddankana uu u celiyo waqtigii mugdiga ahaa ee lagala soo tacaalay. haddaba daawadayaal, saaxiibayaal, waxaanu kusoo afmeerinayaa barnaamijkan inta aanu ku kulmayno barnaamij lamid ah. waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgeno. bye bye.